السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان ما دام يرى ديريهاي يلا ugu talagalay inuu daawado intaan wax kale u galin qofka raba inuu wax ka ogaado ganacsiga Amazon FBA business private labeling-ka especially koorso aan ka hadlaynay in muddo ah oo qiimaheeda $1500 ahaa haddana membership-ka Abaadir Academy aan ku soo darnay ama subscription-ka oo aad $15 ka yar ku baranayso koorsadaas inta aad gelin ka hor haddii aad rabtay information ama warbixin ku saabsan waxaad ka dhaxlaysaa videogan kaliya waxaan ku focus gareynaynaa waxaan diiradda ku saareynaa waxa ku dhex jiro ama laga baranayo ama laga faa'iideeyo koorsadaas ku soo dhawaada magacayga waxaa la yiraahdaa Idris Abaadir Cabdi waxaan maanta u fadhinaa halkan inaan idinku soo gudbino warbixinta aan ka sheekeynayay abaadiracademy.com www.abaadiracademy.com ayaad koorsada la magac baxday game change oo laga barto Amazon FBA business course ganacsiga Amazon laga barto ayaad ka dhaxlaysaa okay adaba waxa laga yaabaa inaad istiri okay $14.99 lacag badan maaha waa 2 koob 3 koob oo shaaha weeyaan waliba Starbucks koorso inta dhan qiimaheeda inta dhan yahay maxay faa'iido ka helayaan oo ay lacagta uga dhigeen faa'iidada ka helayna waxa weeye number 1 koorsooyin qaali ah ayaan hore u sameynay dadkii ugu badnaa ee telefoonadana soo wacay emailada noo soo diray textada noo soo diray waxay ahaayeen dad hami iyo ma aragtay ku jira isbedel doon laakiin waxa kaliya hortaagnaa ay ahayd inay helaan lacagta inta la eg marka anagoo taa tixgelinayna fursadii ayaa waxaan maanta go'aansanay in aan koorsadii qaaliga ahayd aan ugu darno dadka membership-ka qofkana $15 lacag badan maaha bisha ugu hor inta iska bixiso ayaad fiirin kartaa haday ku anfacdo waa khayr haday ku anfici weyso cut waa iska joojinaysaa lacag badan oo ka baxday ma laha lacag badan oo mataqaana ka qasartay ma laha waxna waa faa'iiday oo mataqaana casharka access-kiisa heshay marka haddii aad jeclaato oo koorsada aad sii jeclaatana waa sii wadanaysaa qofka waxa laga yaabaa 2 bilood inuu ku barto qofna 3 bilood inta adiga go'aansato ayaa isaga joojin kartaa lacagta $15 soo marka su'aalihii Abaadir Academy ku saabsanaa oo muxuu yahay iyo muxuu qabtaa iyo koorsooyinka laga barto maxaa kamida videogan kama helaysid videogan toos waxa kaga helaysaa koorsooyinka ganacsiga Amazon FBA business course af Soomaaliga ah ee ku jira Abaadir Academy waxa laga baranayo ayaa ka helaysaa specifically ama gaar ahaan koorsada ganacsiga Amazon ka sheekeynayso okay koorsadan waxay ka kooban tahay 100 iyo plus videoye ka kooban tahay waa koorso dhammaan dabooleysa dhan walbo marka la fiiriyo ganacsiga Amazon wuxuu yahay shirkadu waxay tahay waxay qabato alaabta lagu gado meesha laga keeno qaabka lagu gado lacagta lagu bilaabi karo lacagta lagu sameeyo ina adiga ay sax ku tahay wadankay joogtaa wadanka joogto ma sameyn kartaa wadankay loo ogol yahay wadankay aan loo ogoleen waxaas oo dhan ayaad ku baranaysaa haddii aan u soo qaato qayb maajal u soo qaato sideedaba waxa la yiraahdo brand ama brand mindset waxa weeye shirkado waaweyn oo maanta waxa laga yaabaa in aragtay oo alaabo badan gadaan maanta everywhere aad tagto product arkaysa shirkado yaryar shirkado waaweyn labadaba isugu jiraan marka shirkadaha waaweyn arkayso maalin bay yaraayeen oo mataqaana ay ahaayeen shirkado aad u yar tusaale idin siinaya waxaad Google gareysaa shirkadda hadda aan ka hadlayna Amazon 1992 92 markay bilaabanaysay oo ay ku bilaabanaysay buug founder-ka ma aragtay Jeff Bezos la yiraahdo waxyaalaha uu ka sheekeeyay inta badan waxa kamid ah by the way Jeff Bezos ma aha nin oo ma aragtay ku koray dhaqaale iyo taajirnimo iyo barwaaqo iyo ku soo koray ma aha waxa weeye waa nin hooyadii isagoo 17 jir ay mataqaana oo high school dhiganaysa ay dhashay aabihiisna isagoo 16 jir oo Cuba ka imaaday dalka Cuba oo ka imaaday oo immigrant wadankan uu ku ahaa sala socotaana dalka Mareykanka waa dal dad immigrant ay dhiseen ama Soomaaliya ha ka imaado ama Cuba ha ka imaado ama wadan kale ha ka imaado waa dadka oo suuqa caalamka oo dhan la saga keenay oo halka wada jooga sharcigaas iyo opportunity-ga ay fursadda maarta ku wada nool oo hal magac wada wata oo la yiraahdo Americans marka ninkaas asaliyan ahaan aabiis ka soo jeeda Cuba 92 markuu bilaabay fikir waxa ku soo dhacay ah buugagta Amazon inuu mataqaanaa buugagtan bookstore-rada lagu hayo
sidii buwaagtan dadka loogu kala gudbin lahaa lacagna looga sameyn lahaa wuxuu bilaabay inuu mataqaanaa uu fikir u keeno inuu dhiso shirkad ah in ay buwaagta la isticmaalay ee yuuska ah in kuwii isticmaala aan u baahnayn inta laga qaado kuwa kale u baahan buwaagtaas laga gado waay baahi arrinkaa ugu jirtay xilligaas qofka high school dhameeya ama collegeada dhameeyaan buwaagtooda way iska taallay guriga iska dhigan jireen ama friend ama bookstore-da qaar haddii kuwa yuuska ay gadanayaan oo kale sida Salvation Army oo kale iyo waxaase ama haddii kale in mataqaanaa qof kale asxaab ay yihiin uu kasii gado laakiin system ma jirin waxyaalaha uu Jeff Bezos xilligaa uu ka hadli jiray waxaa ka mid ahayd inuu dhahay markaan fikirka dadka usoo bandhigay waxaa lagu dhahay buu yidhi adiga lisana lagu yidhi maanta adigoo ujeeda inaa mataqaanaa heli karto in buwaagtan anoo heli kara book store igu dhow anoo heli kara sidee aan intaan online u tago aan book oga soo gadanaya adiga mawaalantaa lagu yidhi wax kale aqabata ma weyse nothing that they know wax badan ayaan ogeyn baa jirto hadda 2017 November lagu jiro Jeff Bezos wuxuu galay ninka ugu taajirsan ee caalamka ayuu galay Amazon waxay noqotay one of the biggest e-commerce company marka 92 ilaa hadda xilligaas waxyaalaha uu ka sheekay waxaa ka mid ah Jeff Bezos inuu buwaagta intuu qaado post office-ka geeyo uu isaga diri jiray oo la oran jiray waxaan maalin walba soo wado sii wado lacag inta ka sameeyso meel kuma gaaray sidee tartiib of course investors oo helay sheekad dheer oo company-ga leeyahay oo aan mataqaanaa hadda maanta halkan lagu soo koobi karin laakiin wax walbo u fiirso wax walbo oo shalay impossible aha oo aan macquul ahayn oo lagu oranayay shalay macquul ma waxa lagu oranayay maanta waa possible wax walba oo shalay impossible aha maanta waa possible sababtay tahay waxa weeye in shirkad DHL oo kala soo qaado Alibaba soo qaado Alibaba iyo Amazon waa labada shirkadooda ku tartama hadda e-commerce-ga Alibaba 99kii ilaa wixii ka horeeyay markuu bilaabanayay ninka Jack Ma la yiraahdo founder-ka wuxuu hay'adaha ka sheekay waxa kamid ah dawladda China wasiirka ganacsiga inuu u tagay uu yiri waxaan rabnaa dadka inay internet wax ku kala gataan oo aan caawisaan waxa lagu yiri waa walanta xafiiska ku soo laaban maxaa dhacay qof Chinese online intuu galo wax kama soo gadanaaye waa sida hadda maanta anaga meesha aan joogno waay dadka qaar ay soo waca waxay dhahan qof Soomaali intuu tago online wax kama soo gadanaaye wax naga daabaa lagu dhahaa laakiin shalay markaa fiiriso Jack Ma saas same message ayaa 90skii lagu dhahayay oo la lahaa war qof Chinese ah online intuu tago wax kama gadanaaye dadka dukaamo iyo bakhaaro iyo warehouse iyo waxyaalo leeyihiin orod ma taqaana kuwaas ka ganacso xataa internet magaca la yiraahdo inuu u fasiro ayaa ku adkaatay Jack Ma maantana Alibaba waa billionaire company weeye ma sha Allah marka sidaa darteed waxaan u galeynaa hadda dul yiraahdo waxyaalaha aad ka dhowxi doonto maadaama aan ka hadlay arintaas dhowrka qodob aan ka hadlay oo xogaa yar ahaa Google Dig ahaa maxaa marka ka baranaysaa su'aasha marka waxa weeye waa isa soo dhibtay online ka register gareysay payment-iga $14.99 yaa bixisay koorsada Amazon FBA business course u tagtay maxaa marka the game change Amazon FBA business maxaa ka dhex baranaysaa waxaan ka hadlay brand mindset aan ka hadlay brand mindset-ka waxa weeye in aad adiga fikir adiga aad leedahay oo ka dhex guuxaya wuxuu doon ha ahaado inaad meel inta ku qorto aad bilaabi karto ayaa ka dhex baranaysaa hatta it doesn't have to inuu noqdo hatta maaha Amazon wuxuu rabo ayuu noqon karaa laakiin mar hadda system-kan dhex gasho oo koorsadan aad dhameysato waxaad baranaysaa sida aad shirkadda doonto wax walba fikirka kugu jira maanta aad u bilaabi lahayd meesha u mar lahayd waayo tusaale ina Amazon wax ku gado maba ka haysaba wax kalaaba ku hayaba oo adiga aad ogtahay waxaad baranaysaa resources-ka qaabka dadka Amazon wax ugu gado isla resources-kaas meesha ka helaan iyo qaabka u maraan iyo meesha alaabta ka soo helaan iyo sida magaca kambarigooda ugu soo sameystaan iyo sida website-yada u dalbadaan brand mindset-ka baranaysaa markaas waxaa adiga kii Amazon rabay inuu bilaabo iyo kii aan rabin inuu bilaabo koorsada wuxuu faa'iido ugu jirto inuu fikirkiisa u lahaa thousands of dollars kugu bixeyso inuu wax yar mataqaana ku sameeyo tusaale aan siinaya couple days ago gabar baa soo wacday Soomaaliyeed waxay ugu tiri walaal waan ogahay way ugu tiri ina adiga ganacsiga Amazon iyo dadka sida Amazon wax loogu gado aad mataqaana ka inta badan xooga saarto ka hadasho sidee anigu fikir baan hayaa way tiri oo ah alaab lotion ayaan hayaa oo la isku dardaray ingredients-igi wixii dhan baan hayaa markii aan waxaan rabaa aan ka dhigo shirkad aniga aan leeyahay alaabta aan soo saaran rabaa waa skin care u fiican jirka organic ah marka sidee u caawin kartaa way ugu tiri
waxaan ku iri okay the first step markaan u sharaxay waxaan dhahay forget about Amazon ha ku bilaabin Amazon daartid soo adiga iyo on customer iyo dukaamada inaad geysay iyo website-ka inaad ku gadsoomi lahaa koorsadan qaada soo dhamayso aan ku iri markay koorsadii ay tiri waa yahay ay bilowday 4 days kadib ay soo wacday haddana iyadoo casharada dhexda ugu jiro oo ay maraysa kaliya cashirka 22 kaliya maraysay markaas waa 100 cashar baan dhahay moogtahay casharka markaas waxay tiri I just cannot believe it maba aamini karay tiri wixii hadda aan bartay 22 waxa kala soo socda xagga idhig bayta 22 ugu horeeyay kaliya waxa aan bartay wax aan aamini karma waxay tiri waa waxaan u haystay inaan thousands of dollars aan u aruursado si aan company aan leeyahay aan uga samaysto magacaasi productigaas it's amazing so that's why aan ku leeyahay qofka raba inuu ganacsiga sameeyo qofka kale labadaba inay fursad u tahay okay cashirka marka gudaha u galo brand mindset ka baranaysa sida adiga iyo on brand awlasiida ka baranaysa waxaad baranaysaa waxa la yiraahdo individual account iyo business account individual accountiga waxa weeye Amazon laba qayb baa looga ganacsadaa qofna waxa weeye qof iska tabar yar oo raba inuu ilaa 40 product bishi uu gado qofna waa qof jeeb weyn oo raba inuu wax badan gado marka sida labada account midka u kala dooran lahayd midka individualka iyo midka businesska ah ayaad kala baranaysaa sida mataqaana u kala dooran lahayd waxaad baranaysaa creating Amazon Seller Central account sida Amazon account loo sameeyo especially markaad company tahay emailaha la maro kulli ayaad baranaysaa waxaad baranaysaa haddii aadan USA joogin oo outside USA aad joogto waxaad baranaysaa international Amazon account saa u samaysan lahayd waxaad kaloo baranaysaa world first account haddii aad bangi xataa ku lahayn meesha aad joogto sida aad Amazon bangi ee aqbasho haddaad Europe joogto iyo haddii aad Soomaaliya joogto Amazon bangi ee aqbasho saa u furan lahayd adoo halkaaga jooga ayaad baranaysaa now businesskan waxaan dhahnay caalamka meesha doonto joog waa sameyn kartaa kaliya shuruudaha ayaa kala duwan taas always niyad ku hay marka haddii aad wadankaada aad joogto haddii aad wadan aan USA aad joogin oo Mareykanka aan ahayn just shuruudaha u baahanta steps ka u baahanta u baamaraysaa waad sameyn kartaa okay marka maxaa kaloo baranaysaa waxaa kaloo baranaysaa mataqaana farqiga u dhaxeeya personal accountiga iyo mataqaana business accountiga farqiga u dhaxeeya baranaysaa business license ina u baahanta in kala baranaysaa haddii u baahan tahay ka soo qaad USA hadaa tahay sida business license ku heli lahayd oo baranaysaa ama taqaana ku samaysan lahayd for free asagoo bilaash saa u samaysan lahayd haddii outside of USA aad joogtana sida business license aa uga samaysan lahayd Mareykan gudihiisa si bilaash ayaa baranaysaa maxaa kaloo baranaysaa the product selection process waxaa jira isagana product selection aan wacna oo la yiraahdo sida alaabta aad gadi lahayd aad ku dooran lahayd alaabta adiga Amazon ku gadi lahayd process loo maraa jirto oo la yiraahdo 10 steps 10 points la yiraahdo aan wacno 10 points kaas waxay ka caawinaysaa inaad doorato productiga adiga aad rabtay iyo qaabka ku dooran lahayd taasna casharada ay ku jiraan waad baranaysaa waxaa kaloo baranaysaa the most profitable Amazon categories Amazon markay tahay categoriyada hadda way sii kala yihiin productiga aad gadi lahayd waa heshay laakiin categoriyada ugu faa'iidada badan iyo kuwa kale tusaale categoriga toyska iyo categoriga automotive-ka waxaa laga yaabaa inay isku faa'iido ahayn personal care-ka iyo mataqaana categoriga clothing-ka inay isku faa'iido ahayn baa laga yaabaa categoriyada kala duwanaa isay u kala duwan yihiin iyagana waa baranaysaa cashirka ku baranaysaa what an amazing thing aan ka hadlayna maanta waxaa kaloo gudaha usoo galaysaa waxaa baranaysaa products to avoid alaabta aadan u baahnayn inaad mataqaanaa faraha la gasho alaabo waxaa jiro weydkooda culus yahay alaabo waxaa jiro jaba fragile ah alaabo waxaa jiro patent iyo wax jinni mataqaanaa hadhow kaa daba wareeganayaan alaabaha avoid gareyn lahayd alaabaha aada gadi lahayn oo aad isku lugoon lahayn waqti isaga dhumin lahayn ayaa ku baranaysaa mataqaanaa processka waxaa kaloo ku baranaysaa processka waxaa la yiraahdaa bundle-ka alaabahan hadda alaab baa maanta gadaysaa alaab kale oo ku dhex lifaaqdo si uu mataqaanaa lacagtina ay u badato sale-kana mataqaanaa ay u sii badato waxaa kaloo baranaysaa alaabtaada markaa Amazon keento sida review ugu raadin lahayd ama family ha ahaato friends ha ahaato call workers ha ahaadaan website-da review-ga laga hela ahaadaan Amazon review club ha ahaadaan reviews alaabtaada review waxaa weeye warbixin alaabtaada laga bixiyo ilaa alaabta markay cusub tahay oo la gato waxaa loo baahan yahay qof warbixin ka bixiya alaabtan sida ahayd in mataqaanaa laga helo waxaa kaloo baranaysaa sida aad hal product u focus garan lahayd marka hore adigoo bartay categoriyadii iyo product selection ka bartay laakiin one single product saa u focus garan lahayd ayaa ku baranaysaa casharada haddana aan gudaha usii socdo casharada horteeda ayay yaalaan halkaasaan ka akrinahayaa waxaa kaloo baranaysaa maadaama aan brandki kasoo hadalnay brand markaan ku leeyahayna waxaa weeye waxaa soo hoosgelayo
inaad shan social media account samaysato, looga samaysato, website adiga domain aad gadato, website aad samaysato, business email aad samaysato. halahaas waxaa loogu wacaa brand ayaa la yidhahdaa, waa dhankii brandka weeyaan. kuwa markaa soo baratay, kuwii Amazon iyo selectionkii processkii aad soo baratay, gudahan soo galnay. marka gudaha waxaa weeye hadda hashi product aad focus garan lahayd heshay, productka aad focus garan lahayd xagee ka keenaysaa productka la cirka ma soo dhacaysa moogtahay inaa meel ka keento weeyaan. product waxaa baranaysaa waxaa la yidhaahdo suppliers, finding and working a supplier. sida aad u heli lahayd supplier aad la shaqayso ayaad baranaysaa. international outsourcing product wax la yidhaahdo, sida caalamka meeshaa doonta joog, ama San Jose ku noolaaw, ama maaragtay UK London joog, ama Nairobi joog, ama Hargeysa joog, ama Muqdisho joog, meeshaa rabta joog, halkaa adoo jooga sida international product sourcing aad u samayn lahayd oo aad USA u keeni lahayd, halkaan ugu gadi lahayd ayaa baranaysaa. imagine koorsadaan $1,500 haddaan aan ku adkaysan lahayn, imse qofaa gadan lahayd, number aad u yar. laakiin maanta $15 waxaa laga yaabaa qof walba afford gareyn karo. $15 lacag badan ma aha. soo member noqo, inta mataqaanaa idan kaa buuxsam inaan ku leeyahay. gudahaan usii galaya insha allah. international product sourcing marka supplier, contacting supplier na waxaa barata qaabka supplierka loo raadinayay oo ahayd warshadihii iyo trading officekii, wholesaleradii, distributorkii, waa kala fahantay si u kala shaqeeyaan. idea waxaa haysataa kee manufacture ah oo warshad ah, kee maaragtay supplier ah, kee maaragtay distributor ah, ideadii wixii oo dhan kala hesha hadda. marka kuwa aad rabto waa garanaysaa oo ah factories, warshado kaliya inaad la shaqeyso, taasaa baratay. warshadihii markaa baratay maxaa kuu soo haray? xiriirkii, the first xiriir. email ma u diraysaa, telephone maa ka wacaysaa, whatsapp maa kala hadlaysaa, wechat maa kala hadlaysaa, qaabkii ah contactiga oo la samayn lahayd exactly step by step baa baranaysaa. and plus waxaa kaloo kugu jira emailo qoran oo diyaarsan oo ka hadlaya sida aad mataqaanaa ula xiriir lahayd supplierkan. keliya aad magaca kambanigaada iyo productiga aad rabto aad mataqaanaa ku qorayso, sideeda iyadoo aad u dirayso, inta kale ay ku diyaarsan tahay, ay ku qoran tahay. imagine emailka xataa waqti inaad geliso oo maxaan qoraa, maxaan ka fikiraa, maxaan ku dhahaa supplierka Chinese-ka jooga halkaas, supplierka USA maxaan ku dhahaa, waxaas oo dhan, shaqadaas oo dhan waa lagu qabtay. adiga waxaa weeye inaad hore u socoto baa laga rabaa. keep moving camal weeye sheekada. marka contacting suppliers markaa ka baxdo, how to get the best pricing from the supplier. lacagta negotiationka weeyaan, qiimaha ugu fiican sida uga heli lahayd supplierka. Chinese-ka mararka qaar waxaa laga iPhone case kaa gadayaan ay ku arkaan inaad Mareykan ka codsanayso ama Soomaaliya ka soo codsanayso, inay iska ka dhahaan laba different price in iska siiyaan, inay ku dhahaan kan $5 waaye, hadhowna ma taqaan negotiation sa wad awlada ani intaana rabaa intan inaa $1 ku gadataa laga yaabaa. marka qaabka negotiation ku sameyn lahayd inay ku arkeen qof cusub inaad tahay, qof hadda waxaan bilaabay inaad tahay, inay ku arkeenin ayaa baranaysaa. negotiation ayaa baranaysaa. negotiation maxaa la dhahaa? gorgortan. af Soomaali gorgortanka lagu yiraahdaa. marka supplierkii ama warshadii markaa xiriirka la samayso, follow up supplier ku sameynaysaa. follow up waxaa weeye inaa xiriirkii aad mataqaanaa, waxaa jiro xilli, waxaa jirto period, waxaa jirto supplierada loo aamuso markaad price ay ku dhaafi waayaan, ay ku dhahaan pricekan masoo intan ma dhaafeeno. xilli waxaa jirto loo aamuso oo about 24 hours ah oo la yiraahdo okay, you know what, productigan I'm not interested, qiimaha qaali waaye, alaabta waa jeclahay, quality waa jeclahay, laakiin qiimihii too much weeye. 24 hours kadib hadday jiraan room ay weli lacagta hoos u dhigi karaan, way kula soo xiriirayaan, waxay ku leeyihiin you know what, qiimaha samaad dhinaha, qiimahaasaan kugu siinaynaa. technique iyo tips-ka iyo tips-ka oo dhan aad baranaysaa. marka ideadaas niyadda ku haya iloobin mar walbo. hoos u soco, waxaad kaloo baranaysaa alaabtii aad rabtay, barcode-kii meesha laga gadanayay, qaabka loo gadanayo barcode-kii, alaabtii mataqaanaa productiga sida looga soo ship garanayo China ama haddii tahay USA gudaheeda meesha noqotaba sida looga soo ship garanayo, loogu keenayo mataqaanaa halkan loo keenayo ayaad baranaysaa. haddana waxaan tegaynaa qaybtii Chinese-ka, waan kasoo dhamaanay. hadda fiiri, waxaan samaysanay brandkii, waan kasoo tagnay, Amazon account-kii aan kala baranay, business license-kii aan kala baranay, hoosaan usoo soconay, productiga aan dooran lahayn aan dooranay, Chinese-kii aan kala baranay iyo supplieradii asaan u rabnay, warshadii aan dooranay, supplierka email u xiriirnay, negotiation-kii aan sameynay, productigii aan dooranay, alaabtii aan gadi rabnay markaan dooranay, alaabtii barcode-kii iyo calaamadda lagu soo dhejinayay iyo information-kii oo dhan aan siinay. because intaan u gudbin qaybta kale, because waxaan ma aha wax aan ku dhahayno sidan yeel ma aha. waa wax lagu tusaayo casharada qaabka u design garaysiin. waxaa weeye waa wax lagu tusaayo step by step lagu dhahayo, halkaan magacaada ku qor, halkaan adresskaada ku qor, supplierka halkaan ku qor,
emailka inta ku qor lagu dhahayo weeyaan marka casharada saas u socota as matter of fact koorsadan the game change waxaa lagu dhisayaa company la yiraahdo Otebro mardhow Otebro alaabtiisa ka filo Amazon hadduu ilaahay yiraahdo marka gudaha usoo gal gudaha marka usoo gasho alaabti waa dooratay supplierku isfahanteen packagingki iyo designki iyo logadii iyo wixii dhan iyo companygaada inuu mataqaanaa alaabtaada inuu magaca companygaada kusoo sameeyo ayaa ka wada hadalnay dhag magaca companygaada kugu soo sameeyo shirkadaadii ayaa halkaa kaaga qoran alaabti waa wada heshiiseen waa lagu soo baagareeyay xagee loo dirayaa way alaabti waxaa baranaysaa marka sida alaabta looga soo qaadi lahaa China ila companyada logistic usoo qaadi lahaayeen iyadoo custom clearance-ga aad marinayso canshuurtii iyo wixii ahead of time mataqaana u bixinayso ee uga soo tegayso from China to US alaabtii u imaanayso toos ayay u imaanaysaa adiga kuma soo marayso haddii aad Mareykan degantahay iyo haddii aad Canada degantahay iyo haddii aad UK degantahay iyo haddii aad Nairobi degantahay iyo haddii aad caalamka meesha doonto deganaaw alaabta adiga kuma imaanayso alaabta waxay ka tegaysaa from China supplierki toos waxay u tegaysaa warehouse-ka Amazon ayay u tegaysaa iyadoo diyaarsan oo package gareysan oo ah in hore laga gado diyaar u ah okay qaabka listingka barani markaa barato oo listi gareysa alaabti then maxaa diyaar ah alaabti waxay timaaday Amazon markay timaaday so what is next alaabtaada hadda halkan ay taallaa 200 xabo 300 xabo dukaan yaroo ma aragtay maasha Allah iskayro qurux badan Amazon ka dhex furatay account-kaadi ah waxaad waa ku diyaar maxaa xiga marketingki alaabtaada inaad u market gareyso yaa alaabtaada yaa u maqan adiga u maqan alaabtaada u market gareyn lahayd suuqa u gelin lahayd ayaa baranaysaa iyo qaabkii aad page-ka koobaad u keeni lahayd xoog inaad saarto way taas waa lisaya hoos u soconayna okay hoos u soconayna inventory-gaadi alaabtaada yaa China ka imaatay waxay imaatay Amazon marka maxaa sameynaysaa listing-ka qaabka loo sameesto sawiradii title-ki keyword-ki description-ki review-gi rating-ki PSR-ki waxaan ka hadlaynaa wax casharada ku baranayso ha confuse ku noqon hadda waa waxa baranayso weeyaan so waxaas oo dhan marka hadda amazon.com tagto alaab ku dhufato dabcan Amazon wax ka gadatay saan filaayo insha Allah hadda ka gadanna isku day inaad gadato markaad Amazon tagto kor waxa ku arkaysaa alaabta qoraalka title-ka inta ku qoran yahay sawirada intay ku yaalaan price inta ku yaala description-ka product-ga iyo wixii laga bixinayo product-ga hoose ku taala hoosda u socoto warbixin kala ku taala product-gi culeyskeedii PSR-ki AC number-ki waxaas oo dhan ku yaalo waa dukaan dhameystiran oo adiga aan leedahay weeyaan maasha Allah marka waxa baranaysaa keyword-ka alaabtaada ilaa meesha wax lagu tartamayo waa yaa ugu sawir qurux badan yaa ugu price fiican keyword-ka waxa la yiraahdo alaabta magaca lagu raadinayna yaa ugu haysto ugu fiican waxaas oo dhan baranaysaa sidii mataqaanaa u sarab garan lahayd saa u qor lahayd a killer keyword product creating killer product keyword mid dadka kala saaro oo de suuq oo dhanba ka reebo oo keyword ah keywords ayaa baranaysaa hoos u soco waxa weeye casharada kale waxaa ku baranaysaa qaybtii marketingka ku jirta alaabtaada waxay taala Amazon ما شاء الله listing waa sameysay sawirada waa gelisay title-ka waa gelisay waxaan agalgelinaysan step by step waxa baranaysa ama cid ku sameyso lacag raqiis ka qaadato lacag yar ka qaadato ama adiga qaabka u sameysan lahayd ayaa baranaysa imagine waxaan oo 10 aan ka hadlayno oo lagu leeyahay Amazon iyo wixii hadda aan ka soo hadlaynay $500 ma aha $300 ma aha $200 ma aha $100 ma aha $50 ma aha waa $14.99 ayaad ku baran kartaa kaliya hadda inaad tagto abadiracademy.com registration meesha ay ku qoranta inaad klik gareyso magacaada first name last name ku qoraysaa emailkaada iyo passwordkaada sameysani next ayaa leedahay ama continue kaarkaada informationkiisa gelinaysaa continue ayaa leedahay skills meesha darar u leeyahay doorani Amazon Abadir Academy account ku sameysan markuu ku sameysan yahay waxaad tagaysaa meesha Somali courses waa ku dhufanaysaa waxaad fiirinaysaa ganacsiga iyo koorsada hadda aan ka sheekeynay so tempting ya so yummy ya ma sha Allah hadii aad hoos u sii socoto maxaa marka alaabti waxaan joognay alaabta Amazon ay ku taala sawirada iyo listingki iyo wixii lagaaga baahnayo dhan complete waa sameysay reviewski ayaa bilowday waa dalbatay waa keentay dhowr qof oo mataqaana review ku siiyo family friends wixii waa keentay okay maxaa ku dhiman marketing muxuu qalbaxa 7 shay
toddoba meelaa marketing ka samaynaysaa waana baranaysaa. kow Amazon sponsor ad ayaa ugu haysto. Amazon sponsor ad waxaa weeye wuxuu u kala baxaa manual iyo automatic labadaba. Automatic waxaa weeye Amazon ku dooranayso qaabka u campaign gareynayso, manual kana adiga dooranaya. Amazon sponsor ad maxaan ka wadaa? Amazon itself gudaheeda ayaa alaabta lagu dhaxaysiiyaa. qofka alaabtiisa xaysiintiisa ay badan tahay waa qofka page-ka koobaad tagayo. oo fiirso marka aad alaab inta iska keento boxyo meeshan aad dhulk iskaga siiso aad barkinta iska dheeraysato yaa ku gadayo maya adiga laga rabaa marketing ila xoog saarto. That's why always aniga ka Idris ahaan dadka waxaan kula taliyaa 30% shaqadaada waxaa weeye waa barashadii iyo systemkii alaab keenitaankii. 70% shaqadaada iyo lacagtaadana waa marketing ka weeyaan. haddii aad marketing ka seexato you done. That's why annagana aan waqti badan u gelinay inaan network sameyno, private Facebook sameyno, dhalinyarada qof walba oo koorsada qaato oo member noqdo inaan private Facebook isugu keeno ee dhexda dadka isku market gareeyaan, linkiga productiisa soo galiyo, la booqdo, la kili gareeyo, demand loo sameeyo. waxaan ka hadlay haddaad garanaynin ilaaha ku maqan. marka that's why aad mataqaanaa qof walba oo soo gala koorsadan private Facebook group aan ugu darno oo memberka uu noqdo. that's why uu uga noqdo mataqaanaa tartankaas uu ka qayb galo iyo in alaabtiisa loo xiisiyo dhexdeena isku xiisiin alaabti iyo in la saawiyo oo review la siiyo oo rating waxaasi. marka gabagabadii intaan ka bixin ka hor inkastoo ay wax badan ay hor yaalaano casharo badan ay hor yaalaano videoga aan rabin inuu dheeraado adigana aan ku ogahay already inaa member noqotay hadda ama hadda aad rabto inaa member noqoto markii uu dhamaado videogan aan ogahay. laakiin haddii aan gabagabadii toddobadii marketing aan ka hadlo Amazon sponsor ad oo laba u kala baxa automatic iyo manualki. Google inaad ku samayso ad, Google ad inaad samaysato alaabtaada u samayso ya qaabkii Google ad alaabtaada ugu samayn lahayd xaysiin Google gudihiisa ugu samayn lahayd ayaa baranaysaa. linkiga Amazon la soo qaado, Google la geliyo, xaysiin ad la sameeyo, ad account inta la furto la xaysiiyo. shantii social media ku haray YouTube-ka, Pinterest-ka, Instagram-ka, Facebook-ka iyo Twitter-ka iyagana saa u xaysiin lahaydna iyagana barato. toddobada qodobna waa baranaysaa saa u xaysiin lahayd alaabtaada because marketing hadda iska tiiriso alaabtaada inventory-ga ka dhamaanayso alaabtaada way gadmaysaa. Hey by the way kula tahay dad Amazon ku jira hadda 10,000 20,000 30,000 40,000 1 milyan inay ka sameeyaan wal hadda arinta aaminsaneen waa hurdaa wali. That's why u baahan tahay bal systemka horta arag baro. midda kale dadka xoogaa skeptical-ka ah oo ma aragtay dhahayo Amazon niyo wali ma arag wax badan kama aqaan asaasa fursadaada waa tana sababtay tahay $15 waxa ku arki kartaa dadka mataqaana ganacsigan sidoo u shaqeeyay iyo sidoo mataqaana u socda ayaa ku arki kartaa. That's why inshallah. Okay qodobka ugu dambeeyay last but not least kuwa ilaa halkan soo gaaray oo video ilaa dhamaadkiisa soo gaaray arrin muhiim ah u sheegayaa. waxaan u sheegayaa there is something arrin waxaa jirto adiga ku wada dad badan videogan bilowgiisa ugu hore markay daawadeen 5 daqiiqo 4 daqiiqo 3 daqiiqo interest badan uusan u lahayn ka tagi adiga sababta ay la dhamaad ku daawataan ku sheegayaa waxba kugu dhex jiro oo ka dhex guuxayo isku day inaad kamera dhaliso. waxaa haysataa fikir kugu taagan oo ay dad kale ogeyn waa isleedahay arrintan sidaan ku bilaabaa 5 sano ka hor culayskaas oo kale anigu yahay anigoo waliba qof u shaqeynayo shirkad ku jiro 12 saacadood company u shaqeynayo ayaa walwal waxa igu jiray ah sidee tan uga bixi lahaa fikradaha aniga iga dhex guuxayo aan u keen lahaa. maanta adiga booska taagan tahay waxaa fursad u haysataa inaad ganacsigan barato. not only ganacsigan kaliya ma aha marka koorsadan qaadato fikrado badan aad kala soo dhaxbaxdo aad isku xirto Mareykan iyo China iyo supplier iyo kulli inaad isku xirto adigoo aan boqolaal ku bixineen. soo hadaba saddex arrin baan ku tala ku siinaya. kow maanta laga bilaabo haddii aad member tahay Abaadir Academy iyo haddaada ahaynba book iyo qalin ideyada iyo fikradaha adiga aad leedahay oo ka dhex guuxay ku qorato samayso step ugu hore maalin walba hal talaabo qaad. midda saddexaadna fikradahaada haddii aadan maanta adiga qabanin cid kuu qabanayso malaha fikirkaada ma taqaana kugu dhex jiro bilow. haddii aad ku soo biirtana Amazon Abaadir Academy aad ku soo biirtana isniin walbo private Facebook group inshallah waxa qorsheena ah inaan private lesson ku bixino isniin walbo private Facebook group saa ugu biirtana waxa weeye waa inaad marka hore member noqoto $14.99 ka bixiso koorsada qaadato dhameysato then private lesson kaasna aan halkaas aan ka caawino qof walba oo Soomaaliya aan 10 private lesson aan isniin walba soo galin haduu la yiraahdo oo Facebook live qof aan member ahayn private Facebook group kan ma arki karo
so that's why adiga u baahan tahay inaad fadhiga ka kacdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.